xaaladan waa mid halis ah una baahan in si wadajir ah looga qayb qaato. waa muuqaalo sir ah oo laga duubay gabdho 13 sano jir ah oo la xoogayo si gabarnimadooda loo dhaafiyo. subxaanallah, musiibo ayaa halkan ka dhacaysa. xaaladan waa mid khatar ah oo aan markaasi indhaha bini'aadanka aan u rooneen. haddii aad 15 sano ka yar tahay, waxaan kaa codsanayaa inaadan muuqaalkan daawan sabab la xiriirta inaad argagaxayso markaad aragto gabdho yaryar oo markaasi gabarnimadooda la dhaafinayo weliba si xoog ah. waa halkee goobtan gabdhaha Soomaaliyeed sidaan loogu galayo? sidee ayay gabdhaha ku xoogaan shabakadan ka ganacsata gabdhaha yaryar ee aan weli qaan gaarin? warbixintan ayaan kugula wadaagi doonaa muuqaalo sir ah oo markaasi laga duubay shabakad isku bahaysatay in ay markaasi gabdhaha yaryar ay gabarnimadooda dhaafiyaan. hooyo amase aabe, waxaan kaa codsanayaa in gabdhaha kuu jooga aad guriga ku ilaashato, maadaama dalku uu galayo xaalad halis ah oo keeni karta musiibo. balse inta aanan guda gelin muuqaalkan oo dhammaystiran, daawada muuqaalkan waxaan kaa codsanayaa inaad like saarto si uu u gaaro saaxiibo fara badan, loogana dhiidhiyo xaaladan halista ah ee uu markaasi dalka galayo, islamarkaana gabdhaheenna Soomaaliyeed lagu faraxumaynayo. una sheergaree saaxiibada qiimaha leh ee Facebook kuugu weheliya si ay u ogaadaan arrintan naxdinta leh ee markaasi ka taagan geyga Soomaalida. waadna ku mahadsan tahay daawade la jaanqaadkaaga. dhaqanka Soomaalida waa mid soo jireen ah, waxaana si weyn Soomaalidu ay u ilaashataa gabdhahooda, maadaama ay gabdhaha Soomaalida ay yihiin kuwa markaasi ugu qiimaha badan dunida. haatan magaalooyin badan oo ay ka mid tahay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxaa ka bilowday arrin markaasi u baahan in si wadajir ah aynu uga hortagno haddii aynu dhalinyaro nahnay, maadaama gabdhihii magaalada Muqdisho weliba kuwoodii yaryarka ahaa ee 13 sano jirka ahaa markaasi la dhaafinayo gabarnimadooda weliba si xoog ah. shabakado badan oo ku ganacsada jirka gabdhaha ayaa markaasi ku soo badanayay bilooyinkii la soo dhaafay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. shabakadooyinkan oo markaasi ka ganacsanaya gabdhaha ayaa waxa ay markaasi ka soo wada jeedaan qurbaha, waxaana markaasi magaalada Muqdisho mararka qaar lagu arkaya gabdho yaryar oo markaasi guryo lagu soo xigtay markaasi isla markaana nafta ay halis ugu jirto inay dhaafto, maadaama si xoog ah markaasi gabdhaha yaryarka ah wax looga raadinayo. shabakadan oo ah shabakad baaxad leh isla markaana magaalada Muqdisho si weyn markaasi u gilgishay ayaa waxaa laga leeyahay markaasi dalka America. qurba joog Soomaaliyeed oo Mareykan ku nool ayaana shabakadan fangaraysa oo markaasi dhanka qarashka ka caawisa. waxaa la soo duubay muuqaalo anshaxa ka fog. aniga oo ilaalinayo indhaha saaxiibada halkan ku xiran, ma awoodo inaan idinla wadaago muuqaalada qaar, balse in yar ila dhugo muuqaalkan. xaaladan waa mid halis ah. gabdho fara badan ayaa bikrinimadoodii la dhaafiyey oo weliba markaasi si weyn loogu dhibaateeyey magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. bulshada ayaana si weyn ugu baraarugsaneen arrinkan Muqdisho ka dhacaya. waa halis. hooyo iyo aabe, waxaan idinka codsanayaa in gabdhaha yaryarka ah ee markaasi guryaha idin joogo in aad markaasi ilaalidaan si markaasi looga waardiyeeyo waraabahan gabdhaha dafaya oo markaasi muuqaalo galmo ah intuu ka duubo isla markaana ku xujeynaya in uu baraha bulshada ku faafinayo. shabakadan waxaynu ku raad joognaa magaca shakhsiyaadka iska leh iyo sawiradooda. waxaan rajaynaynaa in muuqaalada soo aadan aan idinla wadaagi doono dadka markaasi shabakadan ku midaysan iyo weliba sawiradooda iyo halka ay ka soo astumeen. balse waxaan saaxiibada halkan ku xiran si naxariis la markaasi uga codsanayaa inaad muuqaalkan sheer gareydaan si uu u gaaro saaxiibo fara badan oo uga feejignaada arrintan markaasi la yaabka leh ee Muqdisho ka taagan iyo gabdhihii yaryaraa oo magaalada caasimadda ah lagu dhibaataynayo. waa in si wadajir ah aynu ugu kacnaa oo aynu muuqaalkan sheer gareynaa si uu u gaaro saaxiibo fara badan. bal daawade, aragtidaada maxay tahay? qaybta hoose ee commentiga igu reeb fariintaada.